kusoo dhow daawada qaybtii saddexaad ee ugu dambeysay ee casharkeena qaybtiisii shanaad softwareka Photoshop. Soo wacan markaas soo dhigana si aan shay meesha u keensano markaan right click ndirano waxa noo soo bixi doona rectangle, roundy, ellipse, polygonal, line ayaa noo soo bixi doona. marka kan ayaan iska isticmaalaya hadda kadib markaan isticmaalo documentiga ma qaybtan ka shaqeyn dhexdeeda saas ayaan u balaarinaya. sida markaas waxa arkaysaa halkaan ay ka soo baxda qaanad kale qaybtan halkaan ka muuqata ama qaybtan ka muuqata waa isku mid. haddaan waxay ku tusiyo falaarta fiiri labada qaybtan ka muuqata iyo sidoo kale qaybtan same weeyna waa isku mid labadoodu. kan ayaan ku dhufanayaa marka kadibna colorka aan doonayo ka dhiganayaa hadda white ayaan u baahanahay. white ayaan ka dhiganayaa markaan white ka dhigto waan asagana soo dhaweynaya halkaas oo kale aan geenayaa kadibna control T ayaan leeyahay si aan geesiisa u maamulo waan balaarinaya. okay hadda marka waxaan soo dhiganayaa leadigan soo qaadanayaa ama layligan soo qaadanayaa kan aan soo qaadanayaa kadibna control T waan balaarinaya wax yar aan balaaraya si aan ula ekaysiyo meesha kadib marka halkaas oo kale aan dhiganayaa asagana hagaag musa igu yaalo waxaan soo qaadanayaa calaamadan ciidan halkaas aan dhiganayaa kadibna waan iska yareynayaa kan xoogaa waan yareynayaa haddaad u baahan tahay meeshan xoogaa ka fogtahay waa la soo dhaweystaa kadib waxaan sameynayaa kana asna u tagayaa control T ayaan oranayaa asna waa yareynaa sidoo kale asagana markaan yareeyo asagana halkaas ayaan soo dhiganayaa. halkaa marka waxaa arkaysaa meeshan inuu kan uu arkaysaa kii ka dambeeya arkaysaa marka layerka tagaysaa waa qabanaya kadibna koraa geynaysaa bas isaga soo baxaya. markaas si kasto casharka waqtigu u dheeraado waa markastoo fahamka u bato oo si fiican wax uga fahanto hagaag markaan saa u soo dhigto marka halkaas soo xoogaa soo dhaweey kadibna waxaan tagayaa marka qoraalka toolkan isticmaalaya marka inaan wax qoraa asagana waxaan isticmaalayaa toolkan ay ku qoran tahay type toolka ama horizontal type tool ayaan isticmaalayaa click ayaan siinayaa click markaan siiyo waxaan dhex imaanayaa documentiga ayaan dhex imaanayaa click markaan siiyo kadibna halkaas ayaan ku dhufanayaa meel dhexe documentiga isaga dhufo qoraal ayaad u baahan tahay markasta marka sidaan ay kugu soo baxaa kadibna qoraalka samaysanaysa marka VS ayaan u baahanahay marka VS ayaan u baahanahay VS markaan qorto ayadana waan soo qaadan doonaa halkaas ayaan saa u soo dhigi doonaa marka hagaag marka intaas markay ku samaysan tahay control 0 documentiga dheh hadda inta marka kana iska xir hagaag halka marka inta wax u baahan tahay day la kuuran yahay qoraalka aad u baahan tahay inta leeymo ayadana salaam waxaan leeyahay L classico oo kale L classico 2022 oo kale kadibna qoraalkan waxa saaraysaa highlight saar kadibna waxa imaanaysaa halkan waxa ka dhigaysaa marka colorkiisa white ka dhig qoraalka si uu muuqdo colorkiisa white ka dhig hagaag inta qabo markaas halkaas soo joogo xoogaas halkaas kala taag saa u taag marka halkan waxa arkaysaa si uu soo muuqana qoraalka ayaa ka maamuli doonto oo waa alignmentiga ku soo arki jirtay weeyaan hadii la kuray Microsoft Office sida marka kuugu taagan tahay waa ka noqonaysaa faraha marka qoraalka fiiri qoraalka markaan joogno halkan wuxuu leeyahay meel ka bedesho qoraalkii farti qoraalka ka bedelaysaa qaybta aad u baahan tahay farta aad u baahan tahay soo qaadan doontaa halkan farta nooca ay noqonayso hadii aad farta weynayso ama aad yareynayso halkan aad isticmaali doontaa ayadana hadda marka duu halkan meesha waa meesha farta ka weynayso ama ka yareynayso oo dhanka soo aad wax arka farta inay yareynayso ama weynayso aad arkaysaa ogaa yare halkan waxa ku jira cabiradeedii ilaa 72 ay tagayaan halkan shape ay ku jira waxaas dhan oo si fiican si falgalo si fiican loo si macaamil hagaag halka ay geey marka hadda waxa iga maqan kaliya marka wal waqtiyaashii wixina isku cayinta iga maqan ayagana waxaan raadsanayaa oo Google ka u raadsanayaa bal shaybkii ama sidoo kale iconadii waqtiga ayaan u raadsanayaa Google. okay hadda waxaan u baahanahay marka inaan helno calendarkii iyo saacadii waqtiga inaan helno ayaan u baahanahay ayadana sidoo kale waxaan tageynaa halkan waxaan tageynaa document waxaan tageynaa file kadibna waxaan ku dhufanaynaa open kadibna waxaan tageynaa meesha ay nagu jiraan ama meesha ay kugu jiraan marka ay raadsanaysaa kulli wadaan pictures ay ugu jiraan saan filayo pictures marka aad tagto oo meesha kugu jiraan aad tagto waxaan soo qaadanaa tusaalaan calendarka aan soo qaadanaa waa kana waxaan kala raadsanaynaa hoos u raadsanaynaa waxa qabaysaa control hoos waxaan u raadsanaynaa saacadda ama iconka saacadda ayaan raadsanaynaa isna waa kana labada markaan soo helo open ayaan dhihi doonaa labadooda halka marka ii soo galaan labaduba kan waan iska qaadan karaa asaga kaliya inaan log ka qaado bas ayuu iga rabaa kaliya sidiisa ayaan u qaadanayaa hadii aad aragto xoogaa wax la socdanaya muddo bas halkaan tagno asagana sidoo kale waxaan sameeyaa backspace ayaan leenahay kadibna asaga ayaan qaadanaynaa markaas documentiga ayaan ku raadinaynaa halkaan aan keensanaynaa
halka markaan kaysano qaybtan waxa artay in wax la socdaan marka sidee uga tirana marka balan fiirino meeshaan uga reebi karnaa kale waad aragtaa meeshaan uga reebaynaa qaybtan halkaas aan tagno maraan control t d iska yareey markaas iska yareyso halkaas oo kala dhig kadibna soo qaaday rasterka oo kale sida isaga mara qaybtan ka soo raacday iskaga dhamee kadib markaas iska dhamayso iska isticmaal marka qaybtaada yarta control t waa yareynayaa kadib markaan yareeyo intaas kale ka dhigayaa kadib halkaas meelahaas kale ayaan dhiganayaa haddana waxaan tegayaa qaybteeda kale oo calendarka ayaan tegayaa soo qaadan calaamadda kadibna kaliga ayaan ku siinayaa kilig marka aan ku siiyo waan iska tiriyaa kiligsi kadibna waxyaabo badan ayuu kaasoo dhex gasho waad arkaysaa meel kastoo cad uu dooray waxba maahan dhib ma keenayso hadhow waxaa meel kastoo cad oo dhan waad iska dhamayn kartaa ama sidoo kale waxaa udeysan kartaa haddii la ku roon yahay sida uu yahay udeysan kartaa oo markasta waxa kasoo dhex muuqan doona meesha waxa uu yahay kasoo dhex muuqan doona cadaankan oo kale daartii waa iska tiri kartaa adeerada fudud markaas kaba biisoo kale waxaa qaadanaysaa horadu qaadanaysaa kadibna waxaa la tegaysaa meeshii aad ku xiyartay halka marka keenta control t d kadibna control minus d iska yaree markaas oo isagana sidoo kale iska yaree icon yar ka dhig wax yar ayaa looga baahan yahay bis sorry okay saas oo duka ka kala wareeg kale halkaas tegaysaa marka falaartaas ka muuqato ama soo dhaweey markay falaartaas muuqato laba gees yaratay saas qabanaysaa kadibna waad ka wareejinaysaa marka si saxda ah aad ka dhiganaysaa markaas saas oo kale ayuu ahaa kadibna iska yaree halka keensa marka isagana kan taga isagana way ka soo daweynaaday si uu kaaga soo daweynaaday marka ka tagayso waxa ku sameeysaa iska yaree ka tagayso control t d iska yaree isagana sidoo kale hagaag waqtiga aad doontaa marka ku qoran doontaa insha Allah waqtiga aad u baahan tahay aad ku qoran doontaa haddii aad doonto background-ka aad u yeelan kartaa oo kala dhexgeli kartaa ka idhi saacadda iyo waqtiga aan kala qorayna marka adigu tootoosi markaas waqtiga ayaa aad iyo aad noo haya oo tootoosi soo dhawti sida doonto ugu qorayso markaas ku farayaysa adigu hagaag saas oo kale ahaan ka dhig xoogaa hoos u daji hagaag sida markuu noo yahay kana saas oo kale dhaweey asagana qoraalka meesha qoraalka tag kadibna tusaalahan waxaad tiraahdaa taariikhda u dhacay oo kale waxaad tiraahdaa wax ku dhacay tusaalahan 5 bisha 7 tusaalahan 2022 kale ayaa tiri kadibna soo jiid qoraalka halkaas keen qoraalka si aad u yareyso marka hore double click si asaga kadibna halkaan tag markaas qoraalka sideed ka dhiganayso hadaa markaas ka yareysan weynaysanayso adiga markaa ku qosayda si aad ka dhiganayso haddaan wax yar ayaan weynaysanaya halkaan waa tii karaa oo saas xoogaan oran karaa si aan u weyneeyo hagaag kadibna waxaan taabanayaa move toolka kadib waan soo jiidayaa markaas halkaas oo kale ayaan dhigayaa saacadda oo kale ayaan rabaa inaan qoro ayana sidoo kale saacadda ayaad qoranaysaa wax oranaysaa u dhacaya tusaalahan 8 habeenimo ayuu dhacayaa hadda buur ah tusaalahan 8 habeenimo am ina taan filaya 8 habeenimo am ayaad leedahay markaas hagaag iska weynayso am kadibna markaas soo qaado iyadana halka iyadana keensa markaas halka keenso color baa ka bedeli kartaa sida doonto ayaa ka dhigi kartaa sidaan oo kale iyo shaka qurux badan baa u sameyn kartaa waana hagaajin kartaa dabcan waxaan filayaa halkan waxaan kaaga muuqda dhammaantood dokumentiyo dhammaystiran aad u fara badan si marka dokumentiga ku noqdo waad group gareyn kartaa waad sugeyn kartaa waad hagaajin kartaa hadda waxaad arkaysaa inuu xoogaa ku qurux badan yahay haddaad kan soo dhaweyso xoogaa waa caadi haddaad kan xoogaa yareyso dadkiisa waa caadi waa yareyn kartaa hagaag haddaad xoogaa yareyso kale xoogaa yareydo kale xoogaa yar soo dhaweyso kana kala sagana wixii qurxina adigu maskaxdaada ka isticmaali kartaa oo kale xoogaa yar okay waa kaasa calaamada garoonka kale ka maqan oo kale garoon icon-ka kale ayadana waa cancel kartaa oo ka dhacay magaciisa intaas ayaan kusoo koobayaa videoga aad ayuu u dheeraaday waxaan filayaa wax badan ka fahantay haddii aad wax badan ka fahantay oo aad sidaan kale u samayso qurxiso waxaad igu soo diri doontaa numberkan qaybta hoose kaaga muuqda ayaad igu soo diri doontaa WhatsApp-kiisa markaas halkaas igala soo xiriir si aan kaaga saxo oo ama wixii marka dheeri aad weydiiso haddaba casharkan share garee like garee subscribe channelka si ay ku soo gaaraan casharada dhammaystiran. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.